وهاجاك داوديال beri waa maalintii tiktok uu hawada ka bixi lahaa ama la xiri lahaa waa haddii aan heshiis laga gaarin waxaad la socotaan in tiktok hadda ka hor la xiray muddo koobanna uu xirnaa balse Donald Trump uu soo celiyey kadib markii uu xilka la wareegay bishii Janaayo 20keedii sanadkan haddaynu ku jirno wuxuuna siiyey muddo kordhin 75 maalmood ah 75 maalmood waxay ku eg tahay beri oo bisha afaraad ay ku beegan tahay 5 haddii heshiis laga gaarina oo aan laga iibinin shakhsi ama shirkad Mareykan ah TikTok mar kale ayuu hawada ka bixi doonaa oo waa la xiri doonaa sida fariintan oo kale ayay arki doonaan dadka Mareykanka ku nool haddaba haddii la xiro wararkayga waxaad kala socon doontaan Facebook iyo YouTube ayaad ka daawan doontaan oo ka bogan doontaan wixii war ah oo caalamka soo kordha waxaa macquul ah in Donald Trump mar kale uu muddo kordhin u sameeyo TikTok haddii ay dhici weydana TikTok gabi ahaanba waa la xiri doonaa oo qadka ayuu ka bixi doonaa ilaa iyo la helo company iibsada shirkado badan oo Amazon iyo companyga gameka Roblox la yiraahdo iyo employment.com iyo companiyo kale iyo waliba shakhsiga caanka ah ee YouTuberka ah MrBeast la yiraahdo ayaa aad u daneynaya in ay iibsadaan oo ay ka iibsadaan ByteDance TikTok inay ka iibsadaan haddii ay dhici weydo oo la iibsado oo heshiis laga gaari waayana TikTok qadka ayuu ka baxayaa ama Donald Trump ayaa muddo kordhin u sameyn doona muuqaalkana saxaabtaadii la sii shargaray haddii aad igu cusub tahayna ku soo biir like-tana hanaga ilaabin waad mahadsantahay